dhawaan ay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaan iyo dikraato madaxweyne ku dhaqan galiyay qaybinta darajooyinka ciidamada kala duwan ee Soomaaliland waxaana maanta bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ee fakar kala duwan ka bixiyeen sida ay arkaan darajooyinkaasi iyagoo mahadnaq ballaaran u soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta ciidamada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Madar Maxamed Cawad Madar Wadani aan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaan waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeyaa darajada uu siiyay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland anigu aad iyo aad baan ugu hambalyeeyaa xukuumadda iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland darajada ciidamada qaranka ee Soomaaliland uu bixiyay inay ahayd waxaan macquul ahayn oo jeebka gacanta geliya ama waqtiga nasiib si dadka gacanta loo galeeyay sanduuqa dabadeedna qofba loo dhiibayaa waxaad arkaysaa dad waaweyn oo darajada ahaa dawladii hore maxaa siyaasad oo kale dabadeedna aan macquul qaadan hadee wax macquulana qaadan wax loo jigana qaadan darajooyinka ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland la guddoonsiyo waxaan u aragnaa cadaalad iyo kala dambeyn iyo administrationis maamul oo ciidanku jira yeelanayaan haatan ciidanka la siiyay darajooyinka sida cadaalad loo siiyay askar taxta sifir ay markii hore iyo kuwa saraakiilaha oo bila darajooyinaha oo la guddoonsiiyay darajooyinkii kuwii taxta sifirka ay garaamkooda la cuni jiray waa cadaalad weeye maamulku taa u sameeyay sida gobolka Togdheer oo aan garto ninka ugu darajada sare ee la siiyay darajooyinka oo ah beelaha people minority-ga ee laga tirada badan yahay waxay ku tusaysaa in cadaalad ay darajooyinka la siiyay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu farxad magaal haddaan ka hadlo fikradda ama darajooyinka madaxweynaha Soomaaliland xilligii maaragtay farxadda iyo ciidda uu ku siiyay ciidamada Soomaaliland waa wax aad iyo aad loogu faano oo wax aad iyo aad maanta marka u faani karno hadii Soomaaliland waayo waxaan aad iyo aad u xanaaqi jiray markaan arko Soomaaliya saa ugu tuuran tahay oo Soomaaliland mid ku talay oo wax kasta ay qabteen aad iyo aad baan ugu farxay waana wax guriga soo hoytay ciidanka darajooga ciidanka qaranka Soomaaliland inay aad iyo aad ugu baahan yihiin waana lagu mahadsanay madaxweynaha waxaan ugu mahadcelinaynaa darajada iyo darajo ka wanaagsan buu soo saaray hadii aan ka hadlo darajooyinka ay bixisay dawladda Soomaaliland waxaan u arkaa darajooyinku in loo bixiyay ama loo maray habkii saxda ahayd waxaanay dhiirigelinaysaa ama ay maxay tahay horumar iyo taabaqaad u tahay ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Bismillahir Rahmaanir Rahiim Saad Maxamed Ismaaciil waxaan ku arkaa madaxweynaha Maxamed Silaan darajooyinka ciidanka si fiican soo wada duuba xilligan ayaa waxay ku soo beegaysaa xilli si weyn loogu baahnaa darajooyinka loo qaybiyay ciidamada kala duwan ee Soomaaliland Axmed Xanad Guray Baqaye Somsa TV magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer